weli taagan tahay muranka ka dhex xaloosan dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowladda Kenya dhulbadeedka ay isku hayaan labada dowladood ayaa waxaa dareenkooda ka dhiibtay shacabka ku dhaqan degmada Badhan waxaana kamid ah hadaladoodii magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Jaamac magaalada Badhan gobolka Sanaag Soomaaliya Puntland Soomaaliya waxaan halka ka cambaaraynaynaa anagoo ku hadlaya codka shacabka magaalada Badhan waxaan halka ka cambaaraynaynaa damaca guracan ee dalka Kenya ay magaranaysaa doonayso inay ku qaadato dhulka Soomaaliyeed iyadoo doonaysa inay ka faa'iideysato khilaafka Soomaalida ku dhex jira iyo burburka ay soo martay iyo dawladda oo wali aan aad u taagsan haddii ay moodayaan Kenyaanku inay sidaa ku qaadanayaan adduunka sharci baa jira xeerar caalami ah baa jira maxkamad bay ku jirtaa arintu kuwaas la tiigsanaya waxaan leenahay annaga ku hadlayna codka shacabka u suura gali mayso Kenya damacaasi waana damac doqoniina ah runtii waxaan leenahay wali Soomaaliya ma dhiman wali Soomaaliya way nooshahay wali Soomaaliya waxa weeyaan way leedahay aqoonteedii iyo awoodeedii iyo aqoonyahankeedii iyo dadkii ka hadli lahaa iyo dadkii waxa kan aqoonta u lahaa intooba way joogaan waxaan leenahay Kenya arintaas ka tanaasusho dibna uga noqoto taa ka kamidana looga tanaasuli maayo anoo jooga magaalada Badhan oo magacaygu Axmed Jaamac uu yahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa boobka laynu ku hayo wadanka ku hayaan nimankan muxuu ahaa Kenyaanku dawladda federaalka horta waa ku ayeysannahay mowqifka ka qaata shacab ahaan haddaanu nahay annagu waa taageersanahay waana dagaal baanu qaadaynaa ummadda Soomaaliyeedna meel kasta ay joogto shidaalka inaga wada leh magacaygu waa Saalax Burkuud waxaan joogaa gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Badhan haddii aan su'aasha ra'yiga ka dhiibto dhulbadeedkan u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee muranku soo dhaxgalay waa bad ay leedahay ummadda Soomaaliyeed leeyihiin dawladda Soomaaliya ay leedahay shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxaan leeyahay dawladda Kenya waa boob cad bay doonaysaa dul aanay lahayn bay sheeganaysaa waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ha u midoobaan cadawga ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha u midoobaan gacmaha is qabsadaan waa dhul bad ay leedahay ummadda Soomaaliyeed ay leeyihiin oo la rabo in xaqooda la duusiyo oo asfo sharci darro lagu qaato waxa la sheegaya wararka ugu maqaala ah in hore sarfay loo mariyay oo loo sahmiyay oo ay tahay meel congor ah oo shidaal ku jiro oo ay sahmiyeen sida daradeed ay u doonayaan in ay mataqaanaa ku murmaan oo ku qaataan ilaahay baad ma iskale anoo magacayga waa Maxamed Ismaaciil Xaashire waxa ku noolahay magaalada Badhan waxa uu sheegaynaa Kenya inay kaga baxdo Soomaaliya waxay ku wado iyo afaaray qeelada ku wado Soomaaliya waa mid kaliya Soomaaliya ha israacdo waxa ka hadlaya Cali Maxamed Qorshure wada taqaaniin marka dalbay hore looga haysatay dallayna hadda naga sidirto way doonaysaa waxaan Soomaalida oo dhan ku boorinayaa ama maartay kula talinayaa dalkeeda la soo weeraray inay soo dhicsato oo maaragtay ay guntiga dhigaysa ka dhigto iyadoo ceelashii batroolka ahayd ee loo qodi lahaa oo maaragtay annagu haddaanu Soomaaliland waxaan nahay mid Soomaaliya hamidoodo Kenyana hal meel baa uga soo wada jeesanaa Soomaaliya oo mid Soomaaliya ha noolaato aniga waxaan ahay waxaan yiraahdaa Maxamed Bashiir Xasan hadda waxaan ku noolahay gobolka Sanaag waxaan ka imaaday gobolka Jubbada Hoose degmada Kismaayo xuduudda la isku haysta markii uu jiray xukunka Soomaaliya waa intaan kala daadanin horteeda waxa muran badda kama jirin waxa ilaalin jiray maraakiibta loo yaqaan badda kuwaasoo ciidamada Heegan ay ku jireen gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo haatan waxa wareerka badda Soomaaliya iyo xuduudeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda iyo ciideeda cid aan marti uga nahay iyo cid aan uga dambeynayno midna ma jirto Kenyana waxa ay kugu hadlaysaa waa gardaro Kenya khilaafka badda ay muddo badan Soomaaliya la dib joogtay dadka shacabka Soomaaliyeed nahay waanu ka soo horjeednaa waanu cambaaraynayna taaga kasta dhulka ka mid ah in lagu soo xadgudbo waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo muwaadin Soomaaliyeed waxaan leeyahay Kenya dalka iyaga caqabada ay ku hayso kala baxdo iyadoo oo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha kaleba ay nagula jirto ha nooga baxdo waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Cabdi
Kenya oo si gardarra ah biyaha Soomaaliya oo rabto inay qabsato سعيد إسحال فندق Ariel TV degmada Baran.